بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلن وعن صاحبيال halkan waa warbaahinta xogta dalka qodobada aad ku daawan doontaan warka xogta dalkana waxa kamida faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaya qasaaraha ka dhashay laba qarax oo siyaabo kala duwan maanta kaga dhacay magaalada Muqdisho iyo duleedkeeda wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya oo si xun u cambaareeyay qaraxii maanta ka dhacay Muqdisho ballan qaadayna in sharciga la horkeenayo dadkii ka dambeeyay qaraxaasi dowladda federaalka Soomaaliya oo jawaab aragtiyo kala duwan dhalisay ka bixisay xanibaadii ay dowladda Kenya ku soo rogtay dhigeeda Soomaaliya kulankii xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo maanta baaqday isla markaana xildhibaanada golaha shacabka oo maanta la siiyay fasax in ka badan 10 maalmood madaxweynaha maamulka Puntland oo madaxtooyada gaalkacyo ku qaabilay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geela Xaaf qabanqaabadii ugu dambeysay ee soo xulista xildhibaanada cusub ee maamulka Jubbaland oo ka soconaysa deegaanada maamulkaas xilli odayaasha dhaqanka ay kulamo ka wadaan magaalada Kismaayo akhbaaraadka dibadda ee warka xogta dalka aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah dowladda Mareykanka oo mar kale u goodisay dowladda dhikeeda ee Turkiga iyo dhulkariir xooggan oo ku dhuftay dalka Holland markala daawasho wanaagsan saaxiibayaal halkan waa xogta dalka waa maalin Arbaca waana 22ka bisha shanaad ee May 2019 inta daawateen waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka warbaahinta xogta dalka iminkan u diyaar garooba qodobada aad daawateen oo intaasi ka faahfaahsan aynu ku bilownay faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qaraxyo siyaabo kala duwan maanta uga dhacay magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda waxa is soo taraya qasaaraha ka dhashay qaraxii maanta ka dhacay agagaarka bar control oo ku taala taalada daljirka Daasoon ee degmada Boondheere ee gobolka Banaadir waxaana qaraxa uu ahaa mid loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa xilliga uu qaraxu dhacaya ayaa waxa barta control taagnaa gawaari fara badan oo qaarkood ay leeyihiin mas'uuliyiin si loo hubiyo waxaana sida la xaqiijiyay qaraxaasi ku geeriyootay sarkaalad ka tirsaneyd ciidamada militariga Soomaaliya oo lagu magacaabi jiray Faay Cali Raage sidoo kale waxaa jira qasaaro dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dad ciidamo u badan iyadoo ilaa haatan inta la xaqiijiyay qaraxaasi ay ku geeriyoodeen dad ka badan 10 qof halka dhaawacyaduna ay sare u dhaafayaan intaasi wararka kale ee la helayo ayaa waxay sheegayaan qasaaro dhaawac uu soo gaaray xildhibaan Shabeel oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya hal askari oo ilaalo u ahaa xildhibaan Maryan Cariif ayaa sidoo kale la sheegay in qaraxa uu ku geeriyooday sidoo kale waxa burbur xoogan uu soo gaaray gawaare ay lahaayeen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda xilliga qaraxa uu dhacay oo ku sugnaa goobta uu qaraxu ka dhacay oo ah control la hubiyo gawaaridana lagu hubiyo oo ku yaala halka laga galo madaxtooyada Villa Soomaaliya iyadoo qaraxaasi uu jiro ayaa dhanka kale waxa qarax kale uu ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya qarax khasaare geysta ayaa ka dhacay wadada isku xirtay control afgoy iyo isgoyska xoosh ee degmada Dharkiinle gobolka Banaadir qaraxa ayaa goobjoogayaal waxa ay sheegeen inuu ahaa miinada nooca dhulka lagu aasay waxaana lala egtay ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliyeed iyadoo ku geeriyooday hal qof oo shacab ah isla markaana uu ku dhaawacmay tiro askari boolisa qaraxa kadib ciidamada ayaa riday rasaas fara badan oo aan la ogeyn qasaaraha ilaa haatan ka dhashay waxaana muddo saacada hakad galay socodka dadka iyo gaadiidka iyo wadada u dhaxaysa isgoyska xoosh iyo ex control waa qaraxii labaad oo maanta Arbaca ka dhacay magaalada Muqdisho waxaana xusid mudan qarax ismidaamin ah oo maanta ka dhacay bar control oo ku taala agagaarka taalada daljirka Daasoon ee degmada Boondheere kaas oo geystay qasaare dhimasho iyo dhaawac bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa waxa yaraaday qaraxyada balse 5 maalmood ee ugu dambeeyay ayaa waxa soo rogaal celiyay isla markaana soo laablaabtay qaraxyada ka dhacaya caasimadda saaxiibayaal wili warka warbaahinta xogta dalka ayaa daawanaysa qaraxyada umurahooda ayaana ku gudu jirnay dhanka kale wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa cambaareeyay qaraxyadii maanta ka dhacay Muqdisho gaar ahaan qaraxii daljirka Daasoon wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareey ayaa si kullu cambaareeyay qarax maanta ka dhacay bar control oo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ku leeyihiin agagaarka taalada daljirka Daasoon wasiir Maareey ayaa ugu horeyn u tacsiyadeeyay dadkii iyagoo alla dartii u sooman ku waxyeeloobay qarax laga soo buuxiyay gaari ayna ka soo gaartay dhimasho iyo dhaawac waxauna eebba kaga baryay in dadkii ku dhintay iyagoo sooman dhamaantood alla uu jannadiisa siiyo isla markaana kuwii ku dhaawacmo uu caafimaad degdeg ah siiyo wasiir Maareey ayaa wax lagu xumaado ku tilmaamay qaraxyada ka dhacay magaalada Muqdisho bisha naxariista iyo cibaadada ee Ramadaan waxaana hoosta ka xariiqay dowladda Soomaaliya aysan marnaba ka daali doonin in ay samayso howlgal ay kaga hortagayaan qaraxyadaas ugu dambeyn wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareey ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay si laba jibaaraan gacanta
siyaasiyiinta ciidamada dowladda la dagaalamaya xarakada al-shabaab sida uu hadalka u dhigay waxaana rajo weyn ka muujiyay in dhowaan ay soo gabagaboomi doonaan dagaalada ka soconaya gobolada dalka isla markaana shacabku ay heli doonaan nabad waarta saaxiibayaal weli waxaad daawanaysaan warka warbaahinta xogta dalka markana dowladda Soomaaliya dowladda federaalka Soomaaliya ayaa jawaab aragtiyo kala duwan dhalisay waxay ka bixisay hadal dhawaan ka soo yeeray dowladda dalkaasi Kenya kaas oo xanibaad lagu saaray qaar ka mid ah xildhibaanada iyo golaha wasiirada ee dowladda federaalka Soomaaliya oo lagu eedeeyay inaysan haysan fiisa ku galka dowladda dalkaasi Kenya war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya oo ka koobnaa qoraal aad u dheer ayaa waxa ugu muhiimsanaa wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo qadarinaysa wasaaradda arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Kenya waxay aad uga walaacsan tahay go'aankii ay dhawaan qaadatay dowladda Kenya ee lagu xadeynayay dalku galka xubnaha xukuumadda iyo baarlamaanka Soomaaliya dowladda Soomaaliya waxay si gaar ah uga walaacsan tahay in xubno ka tirsan dowladda Soomaaliya oo dhawaan u safray magaalada Nairobi kuwaas oo ay ku jireen wasiirro iyo xildhibaano ay xanibaad ku sameeyeen saraakiil ka tirsan hay'adda socdaalka Kenya baasaboorkoodina laga qaatay kadibna dib loogu soo celiyay caasimadda Muqdisho sidoo kale war saxaafadeedka ka soo baxay dowladda Soomaaliya waxa lagu yiri sidoo kale dowladda Soomaaliya waxay muujinaysaa walaac ay ka qabtay in dib loo soo celiyo baaritaan ka dheeriga ah ee lagu sameynayo Soomaalida safarka ku aada Nairobi iyaga oo qasab looga dhigay inay magaalada Wajeer ku hakadaan si baaritaan amni loogu sameeyo arrintan waa mid ka hor imaanaysa heshiiska ay labada dowladood hore u wada galeen isla markaana markudhac ku noqonaysa dowladda Soomaaliya tallaabooyinkaasi waxay carqalad ku yihiin xiriirka walaaltinimo ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya sidaa daraadeed dowladda Soomaaliya waxay ugu baaqaysaa dowladda Kenya inay xiriiriso carqaladaha ay keeni karaan tallaabooyinkaas oo ay ilaaliso xiriirka soo jireenka ee u dhaxeeya labadani dal isla markaana tixgeliso dabciga diblomaasiyadeed iyo sidoo kale ixtiraamka labada wadan ka dhaxeeya dowladda Soomaaliya waxa dhankeeda ka go'an inay ilaaliso xiriirka saaxiibtinimo ee la leedahay dowladda Kenya waxayna sii wadi doontaa soo dhaweynta muwaadiniinta iyo saraakiisha dowladda Kenya ee Soomaaliya imaanaya wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo fursadan ka faa'iideysanaysa waxay tixgelin iyo qadarin u haysaa isla markaana u ballan qaadaysa wasaaradda arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Kenya ayaa lagu yiri war saxaafadeed aad u dheer isla markaana af Ingiriis ku qornaa oo soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya si kastaba ahaatee dowladda Kenya ayaa carqaladeena kala duwan saartay dowladda dhigeeda ee Soomaaliya hase ahaatee jawaabtan ay bixisay dowladda Soomaaliya ayaa aragtiyo kala duwan iyadoo dadka qaar ay dhaliilayaan in dowladda aysan bixin jawaabtii habooneed halka kuwa kalena ay sheegayaan in dowladda ay bixisay jawaab diblomaasiyadeed oo aad u wanaagsan saaxiibayaal qaybaha dhexe ee warka warbaahinta xogta dalka ayaa daawanaysaan dhanka kalena madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa magaalada Gaalkacyo madaxtooyadeeda ku qaabilay dhigiisa Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa qasriga madaxtooyada Puntland ee Gaalkacyo ku qaabilay wafdi ballaaran oo hogaaminaya madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf kulanka madaxweynaha Puntland iyo madaxweynaha Galmudug waxa qayb ka ah mas'uuliyiin ka tirsan golayaasha Puntland iyo Galmudug sidoo kale kulanka kadib waxa qabsoomaya shir laba geesood ah oo yeelanayaan madaxweynaha Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Deni iyo kan Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo mas'uuliyiin ka tirsan golayaasha dowlad goboleedka Puntland iyo Galmudug shirkana waxa laga soo saari doonaa warmurtiyeed ku saleysan waxyaabo muhiimka ah ee laga wada hadlayo sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Puntland sidoo kale waxa la sheegayaa in labada mas'uul kulankooda ay inta badan ka wada hadli doonaan shirkii fashilmay dhawaan lagu soo gabagabeeyay magaalada Garowe dhanka kalena xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta u baqday kulankooda xildhibaanadu ay galeen fasax xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta Arbacada taariikhdan ahayd 22 May waxa lagu waday in kulankooda caadiga ay ku yeeshaan xarunta golaha shacabka ee Muqdisho saacada kulankaasi ayaa guud ahaan baaqday ajendaha kulanka xildhibaanada golaha shacabka oo maanta ayaa ahaa horgeynta wax ka bedelka sharciga libka qaranka oo maray lahaa akhrinta koobaad balse kulankii maanta baarlamaanka ayaa u baaqday sabab la xiriirta kooram la'aan dhanka kale xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta waxay galeen fasax gaaban oo ah inta ka harsan bisha Ramadaan iyo maalmaha ciida sida uu sheegay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Cabdiweli Sheekh Ibraahim Mudey bilihii la soo dhaafay ayaa xildhibaanada golaha shacabka waxa inta badan ka baaqday kulamadooda qaar kadib markii xildhibaanada ay soo xaadiri waayeen waxaana xildhibaanada qaar ay ku eedeeyeen xubno ka tirsan golaha wasiirada oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka inay ka dambeeyaan soo xaadiris la'aanta xildhibaanada golaha shacabka kulamadooda saaxiibayaal qaybaha dambe ee warka warbaahinta xogta dalka dhacdooyinkooda Soomaaliya ayaa dhageysanaysaan qabanqaabadii ugu dambeysay soo xulista xildhibaanada maamul goboleedka Jubbaland ee dhawaan madaxtinimadooda ay dhici doonto ayaa ka soconaysa magaalada Kismaayo iyo magaalooyinka
kale oo ka tirsan deegaanada maamulkaas. magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaa ka dhacay kulan ay yeesheen guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland iyo odayaasha dhaqanka waxaana kulankooda ay uga wada hadleen habka loo mariyo soo xulista baarlamaanka cusub ee Jubbaland. guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland ayaa waxay ku dhawaaqeen in dhammaan degmooyinka uu ka kooban yahay dowlad goboleedka Jubbaland odayaasha dhaqanka ku nool la keeni doono magaalada Kismaayo si loo siiyo tababaro ku aadan soo xulista iyo sidoo kale xalinta khilaafaadka. sidoo kale guddiga ayaa waxa ay sheegeen in odayaal dhaqameed walba laga doonayo inuu keeno 3 qof oo beeshiisa kadibna laga soo xusho mid ka mid ah kaas oo noqon doona xildhibaanka ku matalaya golaha baarlamaanka Jubbaland. habka loo mariyo soo xulista xubnaha golaha cusub ee baarlamaanka Jubbaland ayaa waxa eedeen kulul ka keenay isla markaana ka soo horjeesta musharaxiinta madaxweynaha Jubbaland iyaga oo sheegay in habkaas uu yahay mid madaxweyne Axmed Madoobe uu ku daneynayo in dib loogu soo doorto. saaxiibayaal halka aad ka daawanaysaan warkaasi waa warbaahinta xogta dalka dhacdooyinka Soomaaliya ayaa intaas kaga gudbeynaa iminkana akhbaaraadka dibadda. dowladda Mareykanka ayaa mar kale eedeyn iyo goodin u jeedisay dowladda dhigkeeda ee Turkiga. dowladda Mareykanka ayaa la sheegay in Turkiga ay ugu baaqday ilaa dhamaadka usbuuca koowaad ee bisha June inay ka baxdo heshiiska ay Russia kaga iibsanaysa nidaamka difaaca hawada ee S-400. telefishinka NBC News ayaa sheegay in dowladda Mareykanka tilaabo adag ay ka qaadi doonaan Turkiga haddii aysan ka laaban heshiiskaas isla markaana Turkiga ay la kulmi doonaan ciqaab adag oo ku jirto cunaqabateyn. warbixinta telefishinka NBC News waxaa kaloo lagu sheegay in Turkiga lagala laaban doono barnaamijka diyaaradaha dagaalka ee F-35 iyo inay la kulmi doonaan ballanqaadkii looga iibin lahaa 100 ka mid ah diyaaradahaas oo guud ahaanba laga laaban doono. si kastaba ha ahaatee dowladda Turkiga ayaa ku dhaga adeegaysa in xiriirka ay la siin lahaan doonto dhigooda dowladda Russia xilli Mareykankana uu ka soo horjeestay arrintaasi. ugu dambeyntiina dhulgariir xoogan ayaa ku dhuftay dalka Oolaan. dhulgariir ayaa laga dareemay xaafadaha Westerwijk ee ka tirsan gobolka ku yaala waqooyiga Netherland ee Groningen. qalabka lagu cabiro dhulgariirka ayaa tilmaamay in 3.4 uu ahaa dhulgariirkii Saaka oo Arbaca ahaa laga dareemay dalka Oolaan. ma jiraan khasaare la soo sheegay ilaa iyo haatan uu dhaliyay dhulgariirkaasi kuwaas oo dhimasho iyo dhaawac balse waxaa la sheegayaa in ay jiraan khasaaro burbur oo soo gaaray guryaha qaarkood. wadankan Holland ayaa qayb ka ah wadamada ugu waaweyn ee gaaska dabiiciga leh ee ku yaala qaaradda Yurub. guud ahaan saaxiibayaal qodobkaas ayaa u dambeeyay war wixii dalka iyo dibadda inaga soo gaaraad ka daawanayseen xogta dalka. waad ku mahadsantihiin daawashadiina samoogaanina in aad kanalkan saartaan subscribe si aad u ahaataan kuwa ugu horeeya wararkeena warbixinadeena iyo barnaamijyadeena halkan ka daawada. tan iyo kulan dambe amaana Allah.